السلام عليكم ولا يو وحان إذنكو بشارينيا ونفتيدا إيا نفتينا ugu bishaareynaya dhalashada bisha Ramadaan alxamdulillah Allah baa mahadran sugan tahay bishaas oo ah bil aan muddo dheer sugaynay ikhwani fillah waxaan rabnaa bisha Ramadaan inaan ku qaabilno istighfaar badan tawbad badan cibaado badan iyo alla ka cabsi badan iyo alla ku xirnaansho badan sidoo kale Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu Ilaahay naga dhigo inaguna daro adoomihiisa uu bisha Ramadaan ugu naxariisto adoomihiisa uu bisha Ramadaan ugu dambi dhaafo adoomihiisa uu bisha Ramadaan naarta kaga xoreeyo ikhwani fillah kuwa badan oo idinkeena kamid ah waxa la socotaan bisha Ramadaan marka la gaaro in aan social media ka nasto oo ka fariisto taasoo sababtu ay tahay anoo raba inaan ka faa'iideysto jaaniska uu Rabbi igu arsaaqay oo uu Rabbi isiiyay oo ah khayrka iyo wanaaga bisha Ramadaan marka laga reebo WhatsApp-ka oo aan isagana ula haray inaan labadeeda waalid Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala cimri dheer iyo caafimaad ha ii siiyo aan kala xiriiro Allahna ay xifdiyo iyo sidoo kale walaalahay oo ah garbahayga iyo dhiirigeliyaasha noloshayda iyagana Allah ay xifdiyo ikhwani fillah waxa inoo balan ah insha Allah alla ku xirnaasho badan cibaado badan iyo duco badan waxaan ogaataan bisha Ramadaan inay tahay bishii cibaadada oo aan cibaado ku qaabilno cibaadana ku dhameysano sidoo kale ay tahay bishii ducada oo aan Rabbi mar walba barino wax walba aan u baahanahayna aan Rabbi weydiisanayno inaga oo mar walba haddaan sujuudsanahay iyo haddaan sujuudsanaynba aan Rabbi mar walba bariyano inaga xumaanta iyo macsida iyo dunuubta iska ilaalinano ikhwani fillah waxa inoo balan ah insha Allah sidoo kale inaan isku soo laabano habeenka ciida farxadna ku kala tagno Ramadaanta farxadda ciidana isku soo laaban doona insha Allah wallahu wali tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh